بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sabtida qaaliga isku soo laabasho wanaagsan waxaan inaad fiicantiin soo dhawaada hadafkayga iyo ujeedkayga muuqaal samaynta noqoshada muuqaal sameeya hadafkayga iyo ujeedkayga waxaan u noqday youtuber waxaa la joogaa casrigii tiknoolajiyadda casrigii wax soo saarka casrigii muuqaal samaynta casrigii AI-ga horumarka dunida ee AI-ga ayaa si baaxad leh ku socda wax walba way isbedeleen caalamkuna si degdeg ayuu ku socdaa muuqaal samaynta ayaana noqotay mid ka mid ah xirfadaha ugu muhiimsan ee qof uu yeelan karo waxaa jiray wiil yar oo ku noolaa meel cidla ah oo ka mid ah xaafadaha muqdisho kolka uu safro waxaa la wadaagtaa afar walaalo ah oo asiga la dhashay halka uu wax ku barto taleefan shaashadiisu jajaban tahay nolol iska adag iyo duruufo baaxad leh laakiin waxa uu lahaa hal riyo maalinun ayaa noqon doona muuqaal sameeye aad u weyn daawadayaashu way jeclaan doonaan waxyaabo badan way iga faa'iidi doonaan saameyn dhab ahna waan ku yeelan doonaa muuqaal samaynta taasi waxay ahayd riyada uu lahaa wiilkaasi yaraa laakiin hal su'aal ayaa maskaxdiisa xareysay wiilkaasi yar maxay micno leedahay muuqaal samaynta ama in la sameeyo muuqaalada haddii aanan lahayn hadaf iyo ujeeddo cad oo aan ku socdo taariikhda mawduuca muuqaal samaynta ama content creation waxay ahayd xirfad lagu madadaaliyo dadka waayadii hore balse hadda waxay isku beddeshay qaab wax lagu barto qaab war lagu faafiyo iyo qaab lagu saameeyo dadka kale noloshooda maskaxda dadka lagu bedelo fikradooda iyo aragtidooda dunidana lagu saameeyo waa maxay noqoshada muuqaal sameeye xaqiiqada dhabta nolosha muuqaal samaynta maanta maahan keliya inaad iska hadasho ama aad video iska duubto aad meelaha isa soo dhigto keliya balse waa inaad dareenka dadka aad taaban karto saameyn dhab ah aad yeelan karto ujeeddo aad leedahay bulshada aad dhisi karto maskaxda iyo fikirka dadkana aad saameyn taban ku yeelan karto noloshoodana aad wax usoo kordhin karto waxaa jira kumanaan dhalinyaro soomaaliyeed kuwaasoo leh hal abuuray la yaab leh balse aanan garanaynin sababtay wax u duubayaan meeshii wax ka bilaabi lahayen iyo borsaska ay mari lahaayeen qaar waxay doonayaan lacag qaar kale waxay doonayaan views keliya in la daawado qaar kale waxay doonayaan keliya caanim kuwa kalena rabitaankooda keliya ay iska raaceen iyo hadba waxay dadka daawanayaan iska rabaan unbay iska raacdaan balse maxaa ku dhacay inaan isweydiino waa maxay hadafkayga maxaanse u raba aniga inaan wax sameeyo inaan muuqaal sameeyo maxaan u rabaa ujeedka aan ka leeyahay midaas ayaa loo baahan qof walba muuqaal sameeyo in isweydiiyo waliba wuu duubi karaa muuqaal kaamarna wuu soo fariisan karaa laakiinse qofka ka hadli kara dareemaha dhabta ah saameyn karana qalbiyada dadka midkaasi ayaa ah dhab ahaantii midka wax bedela waxaad doonaysaa in lagu xasuusto qof nolosha dadka wax ka bedelay ama qof waqtigooda ka lumin jiray saameyn noocee rabta inaad yeelato soomaalida waxay leedahay hadallada qaar waa lacag hadallada qaarna waa been adigu markaad muuqaal sameeye tahay hadalkaagu waa mas-uuliyad saameynta hadalkaaga waa waxaad dadku ku dhisi karto ama aad dadku ku burburin karto ilaali waxa afkaaga ka soo baxaya markaad tahay muuqaal sameeye keliya ma tihid qof iska hadlaaya 67% dhalinyarada soomaaliyeed waxay isticmaalaan tiktok ama youtube balse 82% iyaga ka mid ah ma haystaan content leh ujeeddo cad iyo saameyn dhab ah 43% ka mid ah dhalinyarada ayaa waxay sheegaan inay rabaan inay noqdaan influencer balse waxa ay sheegaan keliya inaysan garanin wax dhaafsan caanimo ayad quraanka waxay leedahay qul i'malu sayara Allahu 'amalakum waxaad dhahdaa amal farac ilaahay wuu arki doonaa camaladiina iyo waxaad samaysaan quraanku wuxuu ina barayaa in camalku ha ahaado muuqaal ha ahaado qoraal ha ahaado fikrad uu leeyahay qiimo haddii laga helo niyad daahiran iyo hadaf sax ah islaamku wuxuu ina farayaa dadka ama bulshada inaan uga faa'iideyno hadba meesha aad joogto iyo waxa aad ku caawin karto waxaad ku soo kordhin karto iyo saameyntaad ku yeelan karto meel walba aad joogtid wuxuu inagu moorinayaa inaad waxa aad u qaban kartid aad dadka ku caawisid bulshadana aad saameyn ku yeelato saameyn taban aad bulshada ku yeelato muuqaalkaagu ha noqdo sadaqa jaariya faa'iidooyinka muuqaal sameeye leh hadaf fog iyo ujeeddo cad xiriir dhab ah ayaad la yeelanaysaa daawadayaashaada iyo dadka adiga kugu xiran adigoo hal abuuraya ayaa dadka waxaad bari kartaa inaysan muslimnimadu ahayn keliya hadal ay tahay ficil dhab ah iyo nolol qurxoon waxaad kaloo noqon kartaa codka dadka aamusan waxaad kaloo saameyn dhab ah ku yeelan doontaa dulmanayaasha aanan hadli karin waxaadna ka hadli doontaa shucuurada dadka aamusan doonayo keliya inaan noqdo influencer si aan u helo views ama subscribers fara badan waxaan doonayaa inaan dhiirigeliyo dhalinyarada si ay naftooda u rumaysaan noloshooda u aaminaan naftooda iyo noloshooda wax u qabsadaan taageerno curinta iyo hal abuurada dhabta ah aan wadaagno aqoon iyo waayo aragnimo intaa isdheernahay iyo iska ilaalinta qaladaadka si uusan ugu dhicin qofka isla godkii ka fogaanshaha xumaanta iyo dembiga aan abuurno bulsho taageerta kobaca maskaxda iyo hal abuur horumarka nolosha iyo isbeddelka bulshada SG community waxaan rabaa inay iga caawiso inaan arko qiimaha codkayga iyo awoodda hadalkayga iyo awoodda aan u leeyahay inaan bulshada wax ka bedelo saameyn la taaban karana yeesho maanta waxaan halkan u joogaa inaan idinla wadaago safarkayga si daacad ah si dhiiran si dhab ah ujeedadu waa inaan noqdo saameeye dhab ah haddaba adigu waxaad ugu baahi badan tahay si aad u soo bandhigto hal abuurka ma dareensan tahay ma dareentay inuu codkaagu wax bedeli karo intaas ayaan kusoo gabagabeynayna maanta muuqaalkeena maanta isku soo laabasho wanaagsan asxaabtayda hawshu waa say u bilaabatay wada socod wanaagsan insha allah maca salaam